assalaamu calaykum soo dhowaada asxaabi waa tahay daawadayaal ninka badan adduunka maxaad ka taqaanaa ninkan maraykanka ah ee magaciisa la dhaha Jonathan Lee Rija ayaa noqday qofkii ugu dacwada badnaa dunida sababaha uu dadka ku dacweynaya qaarkood waxay ahaayeen sabab lagu qoslo ama aan macno lahayn hooyadiis ayuu dacwad ku soo oogay isagoo ku eedeeyay inaysan si fiican u soo korin waxaanu ka qaaday lacag magdhow ah oo gaadhaysa $20,000 waxa kale uu dacwad ku soo oogay dhammaan saaxiibadii isagoo ku eedeeyay inay si xun ula kaftami jireen oo caayi jireen iyo wakhtiga ay la ballamaan oo ay ka soo habsaami jireen waxa uu dacwad ku oogay deriskiisa macallimiintiisa qaraabadiisa xaaskiisa madaxweynayaasha waddamada qaar dad magac leh iyo xitaa qaar ka mid ah askarta daawada ninkan waxba ma dhaafi maayo tirada dacwadahu dadka ku oogay waxay gaadheen 2,600 oo dacwadood ilaa uu ku guulaystay abaalmarinta Guinness World Record ninka ugu dacwada badan adduunka kadib wuxuu dacwad ku oogay mas'uuliyiinta Guinness World Record isagoo ku eedeeyay inay ka dhigeen qof caan ah ayna faafiyeen warbixintiisa shakhsiga ah iyagoo aan ogolaansho ka haysan isaga sidoo kale waxaa la sheegay inuu dacwad ku oogay qaar ka mid ah shirkadaha sameeya ciyaaraha geemiska isagoo ku eedeeyay inay wakhti badan ka lumiyeen yaraantiisii sidoo kale waxa uu suurto gashay Jonathan inuu dacwadahan faraha badan ka helo lacag magdhow ah oo gaadhaysa $850,000 waa $1 milyan oo $250,000 daawada ninku dacwad badan ah wakhti uu waraysi siinayay mid ka mid ah tifiyada caanka ayaa Jonathan waxa uu si murugo leh u weydiiyey wariyihii waa maxay sababta aan keli u ahay ee aanay ciidinayay jeclayn ninkii wariye ahaa ayaa aad ugu qoslay su'aashaas Jonathan ayaa dacwad ku oogay wariyihii tifigiiba isagoo ku eedeeyay inay ku dheeldheeleen oo ay dhowri waayeen dareenkiisa waxaanu magdhow ahaan uga qaaday lacag dhan $50,000 daawade dhacdada cajiibka ah ninka ugu dacwada badan adduunka faalladaada 1 iyo 2 noogu reeb commenti dhacdada labaad nin Maraykan ah oo magaciisa la dhaha Nick Stafford ayaa waxay dawladdu ku cashuurtay lacag dhan oo gaadhaysa $3,000 Maraykanka si uu muujiyo cadhada uu ka qabo lacagtaas ee aadka u badan ee lagu cashuuray ayaa waxa uu cashuurtii ku bixiyey lacag shilimaan ah oo isugu jirta 1 ilaa 10 senti waanu isku soo dhex qasay si aan loogu xisaabin karin miisaan 300,000 oo xabo oo shilimaan ah ayaa uu ku soo qaaday 5 kaariyoon tirinteedu waxay qaadatay 10 saacadood oo xidhiidha daawada ninkan cajiibka Nick Stafford maxaad ku tilmaami lahayd daawade dhacdada saddexaad oo iyana ah mid cajiiba Suharto Jundam waa nin Filibiin ah oo ku nool waddanka Australia Suharto mar waxa uu iibin jiray kalluun mar wuxuu ahaa shaqaale nadaafadeed marna wuxuu ahaa mudalab habeen iyo maalinba uu shaqayn jiray si uu u urursado lacag uu ku barto caafimaadka waxa uu suuro gashay inuu ka qaato shahaadada dhakhtarnimo jaamacadda Queensland imankana waxa uu ku shaqeeyaa dhakhtarnimo mushaharkiisuna waa $9,000 bishii waxa uu yidhi Suharto dadka Australiyaanka ahaa ee shaqooyinkayga darteed igu dheelleeli jiray maanta waxay ugu yimaadaan si aan u daweeyo ama aan wax u baro daawada qisada waxaan kala soo bixi karnaa naftaada oo adigu hiil u noqoto wax dhaamo waanad helaynba sheekada afraad gabadh baa waxay ku tidhi shaydaan ma arkaysaa ninka dawaarla ah ma waswaasin kartaa oo ma ku qancin kartaa inuu furo xaaskiisa waxa uu yidhi shaydaankii haa waana arrin ii fudud shaydaankii baa u tegey ninkii oo bilaabay inuu waswaasiyo oo uu dhan walba kaga yimaado laakiin dawaarlo waa uu jeclaa xaaskiisa kuma uu fikirin xataa hal mar inuu furo xaaskiisa waa uu iska soo noqday shaydaankii waxa uu qirtay inuu ku guuldarraystay arrinkaa waxay ku tidhi gabadhii bal eeg uun haddaba waxaan sameeyo anugu gabadhii waxa u tagtay dawaarlihii waxaanay ku tidhi waxaan doonayaa maro qurux badan oo uu inankaygu doonayo inuu u hadiyeeyo gabadh ay isjecel yihiin oo la qabo dawaarlihii waa uu siiyey maradii kadibna waxay tagtay gurigii dawaarlaha waxay garaacday albaabka waxaana ka furtay xaaskii dawaarlaha waxay ku tidhi walaal gabadh safar ah baan ahay waxoogaa rubuc saac ah ma ku sii nasan karaa gurigaaga waxay ku tidhi xaaskii dawaarluhu soo dhowow
markay xaaskii dawaarluhu madbaxa gashay ayaa ay gabadhii maradii gelisay albaabka dabadiisa iyadoo aana cidina arkayn. kadib waa ay ka baxday. markii uu dawaarluhu guriga yimi ayaa uu markiiba isha ku dhuftay maradii. kadib waxa uu soo xasustay sheekadii gabadha ay uga sheegtay ee ku saabsanayd inankeeda iyo gabadhii la qabay ee ay isjeclaayeen. isla goobtii baanu ku furay xaaskiisii. shayddaankii waxuu yidhi dumarku dhib waa ay abuuri karaan laakiin xal ma keeni karaan. waxay tidhi gabadhii, bal ka warran haddii aan isku soo celiyo labadaa qof imanka. shayddaankii oo sidee baad iskuu soo celin karaysaa? bal aan ku eegna isku soo celi. gabadhii waxay maalintii labaad u tagtay dawaarlihii waxaanay u sheegtay inay doonayso maro u eg maradii shalay oo maradii shalay ay ku ilowday gabadh wanaagsan oo ay shalay gurigeeda ku sii nasatay kuna tukatay. isla markaa ayaa uu dawaarlihii soo ceshaday xaaskiisa. daawada halkaa waxaanu ku soo koobinnaa 3 dhacdo cajiib ah iyo sheeko xiise leh. kugu layaa ku badnayd adiga. haddii aad ka heshay fiidiyowga like saar siina sheer garow. asalaamu calaykum.